kulan wacan daawadayaal waa muuse xushow waxaad kusoo dhawaataan falanqeynada isku duuban ee kulanka Manchester Derby iyo sidoo kale Chelsea iyo Brentford oo iyana isfara saari doona. Haddii aynu ku bilowno ciyaarta Manchester Derby oo ah kulanka dabcan weyn ee la wada sugayo, Rico Lewis ciyaaryahanka la yiraahdo ayaa ganax ku seegaya kulan ciyaareedka Manchester City ay la qaadanayso kooxda dhigeeda ah ee Manchester United kadib roosihii loo taagay ciyaartii ay la qaateen kooxda Crystal Palace. Tababare Pep Guardiola ayaa sheegay in 3 ciyaartoy oo kaliya ay joogaan marka laga hadlo difaacyada kooxda Manchester City ee heerka sare ama waaweyn. Sidaas aawadeed waxa uu ku qasbanaan doonaa in ciyaartoyda qadka dhexe uu soo raro dhinaca difaaca, haddii kalena garbaha difaac. Rodri, Oscar Bob, Nathan Ake, John Stones iyo Manuel Akanji ayaa dhammaantood dhaawacan, waxaana Phil Foden iyo Mateo Kovacic ay yihiin kuwa diyaar u noqon kara kulanka gadaal markii ay kusoo laabteen ciyaartii Juventus ay kooxdoodu la qaadatay bartamihii toddobaadka, waxaana ay ku lug yeelan karaan ciyaarta xiisaha leh ee maanta oo axada dhacaysa. Manchester United tababaraheeda Robin Amorim waxa uu sheegay in aanay jirin wax dhaawacyo cusub oo digniin ay ka qabaan. Johnny Evans ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda kuna lug yeelan kara kulankan, balse Luke Shaw weli waa uu sii maqnaan doonaa. Xaqiiqooyinka kulankan haddii aanu eegno, kooxda Manchester United ayaa khasartay 5 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeysay ee Premier League ay kaga hortagto kooxda Manchester City, waxaana ka mid ah 3 booqasho ee ugu dambeysay ee garoonka Etihad ay booqato. United ayaan khasaarin 4 ciyaarood oo isku xiga oo ciyaaraha horyaalka ah oo ay la ciyaarto kooxda City tan iyo 1955. Kooxda Red Devils ayaa khasartay 20 ciyaaraha Premier League oo Manchester City ay ka hortagtay, waana kooxda labaad ee khasaaraha ugu badan ay kala kulanto marka laga reebo kooxda Arsenal oo 21 mar ka badisay inta horyaalka Premier League uu jiro. Tani waxa ay noqon doontaa ciyaartii ugu horeysay ee Premier League ee labadan kooxood midoodna aanay ku jirin 3 kooxood ee horyaalka ugu sarreeya 4 sano ee lasoo dhaafay. Dhinaca Manchester City ayaa badisay kaliya mar 10 kulan ee ugu dambeeyay ee dhammaan tartamada. 7 ciyaaroodna khasaare ayaa soo gaaray, waana markoodii ugu foosha xumaa marka la fiiriyo 105 ciyaarood oo horay ay u soo ciyaareen. Pep Guardiola kooxdiisa ayaa laga dhaliyay ugu yaraan 2 gool 7 kulan oo ka mid ah 11 kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka, waxaana ay ka badan tahay inta laga dhaliyay 62 kulan oo intaas kasii horeeyay. Kooxda City waxaa 4 dhibcood ay ka heshay 6 kulan ee ugu dambeeyay ee ciyaaraha Premier League, waxaana ay kala siman tahay dhinaca dhibca ugu liidashada kooxda Southampton oo iyana sidan oo kale samaysay. 27 dhibcood oo kooxda City ay hesho waa markeedii ay ugu dhibcaha yareed tan iyo 2010, waxaana 27 dhibcood kooxda haysata 15 kulan ee ugu horeeya horyaalka ciyaarta ee haddana ku guuleysatay Premier League ay tahay kaliya Manchester United oo sidaas samaysay 2002 iyo 2003. Dhinaca Manchester United haddii aanu eegno, Manchester United waxa ay khatar ugu jirtaa inay khasaarto markii saddexaad oo isku xiga ciyaaraha horyaalka, markii ugu horeysay tan iyo 4 khasaare oo isxiga oo gaaray May ilaa iyo Agosto 2022. 39% goolasha laga dhaliyay ee Premier League Manchester United sanad ciyaareedkan waa koornayaal, waana 7 gool oo ka mid ah 18 gool ee kooxdan laga dhaliyay oo koroosyo dhinacooda ka yimid. United ayaana u muuqata halkaas inay ku liidato. United 19 dhibcood oo ay aruursatay 15 kulan oo ciyaaraha horyaalka waa markoodii ugu hooseysay tan iyo 1986, markaas oo hogaanka kooxda uu hayay Sir Alex Ferguson. September 3 gool iyo eber guul ah oo ay ka gaartay kooxda Southampton ayaa ah guusha kaliya ee 7 kulan oo ciyaaraha Premier League oo banaanka ay kusoo ciyaartay ay soo gaartay. 3 mar waa ay khasaartay, 3na waa ay garab dhacday kooxda United. Harry Maguire ayaa waxa uu noqon doonaa mid ka soo muuqda ciyaartiisii 250aad ee ciyaaraha Premier League. Taasi waa falanqaynta kulan ciyaareedka Manchester City iyo Manchester United dhexmari doona. Bal markana haddii aanu eegno kulanka Chelsea iyo kooxda Brentford, Chelsea ayaa waxa ay dib ugu yeeri doontaa ciyaartoydeeda waaweyn oo dhammaantood xidigihii la fili karay inay ku bilowdaan aanay u safrin dalka Kazakhstan ciyaartii UEFA Conference League ay kasoo badiyeen kooxda Astana. Ciyaaryahanka Pedro Neto oo kusoo bilowday ciyaartii 3 gool iyo gool ay kusoo badiyeen Khamiista ma heli doono wax ciyaara,
oo hal kulan ayuu ganaax ku seegi doonaa maadaama uu aruursaday 5 calaamadaha hurdiga ama jaallaha loo yaqaan, halka Reece James iyo Wesley Fofana ay weli dhaawac ku maqan yihiin. Kooxda Blues ayaa u baahan in ay dib u hesho ciyaaryahankeeda Rami Lafia, kaasoo laga qaaday ciyaartii ay la qaateen kooxda Tottenham oo dhaawac ka soo gaaray dhinaca muruqa. Brentford ayaa xidigeeda khadka dhexe ee Vitaly Janelt waxa uu yahay ciyaaryahan kooxda kusoo laabanaya tan iyo markii uu seegay ciyaartii ay Newcastle kasoo adkaadeen dhaawacan sidaas u xooganayna uu sababsaday. Christopher ayaa sidoo kale waxa uu kooxda ka maqnaay muddo 2 bilood ah, hadda waa diyaar inuu kusoo bilowdana waa la filayaa, sida uu sheegay tababare Thomas Frank. Si waliba ciyaartoyda Matthias Jansen, Rico Henry, Aaron Hickey, Gustavo Nunes iyo Josh Da Silva ayaa baaqi kusii inay ka maqnaan doonaan kooxda Brentford. Chelsea waxa ay badisay ciyaarteedii Premier League ee ugu horeysay oo ahayd midii uu Ben Chilwell goolka u dhaliyay ciyaar ka dhacday Gattage Community Stadium October 2021, balse ma aanay badin 5tii kulan ee ugu dambeysay ee kooxdan ay la qaadato. 2 ay garab dhacday, 3 marna waa laga badiyay. Kooxda Bees ayaa badisay dhammaan 3 kulan ee ciyaaraha Premier League ay booqatay garoonka Stamford Bridge, waxaana ay dhalisay 8 gool halka 1 gool keliyana laga dhaliyay. Thomas Frank kooxdiisa ayaa noqon karta kooxdii ugu horeysay ee 4 kulan oo xiriir ciyaaraha horyaalka kusoo badisa gegida Stamford Bridge tan iyo Leeds intii u dhaxaysay 1973 ilaa 1991. Kooxda Chelsea ayaa badisay 4 kulan oo ciyaaraha Premier League oo isku xigxiga, waxaana ay dhalinaysay markiiba ugu yaraan 3 gool 3dii kulan ee ugu dambeysay. Halka mar ay kooxdani dhalisay 3 gool ama wax ka badan 4 ciyaarood oo isku xiga waxaa laga joogaa 70 sano, waana sanadkii ay horyaalka ku guuleysteen 1954 iyo 1955. Kooxda Chelsea waa kooxda ugu goolasha badan horyaalka Premier League marka dhaliska laga hadlo, 35 gool ayay dhalisay, 4 gool ayaana ka badan tahay kooxaha ugu soo dhow oo kala Brentford iyo Tottenham. Nicholas Jackson ayaa waxa uu sameyn doonaa kasoo muuqashadiisii 50aad ee ciyaaraha Premier League. Kooxda Brentford dhinaceeda haddii aan eegno, kooxda Bees lagu naanayso ama Shaniyaha waxa ay 1 dhibac kasoo heleen 21 dhibcood oo suuragal ahayd in ay qaataan xilli ciyaareedkan marka ay ku dheelayaan ciyaaraha bannaanka, balse 22 dhibcood ayay kasoo qaateen 24 dhibcood oo suuragal ahayd ciyaaraha gurigooda. Kooxda Brentford ayaa haddii ay dhaliso ugu yaraan 2 gool waxay noqon doontaa kooxda labaad ee kaliya ee dhalisa 30 gool ciyaaraha Premier League ee 16 kulan ee ugu horeeya tan iyo Leeds oo sidan samaysay sanadkii 2020-2021. waxa ay khasaareen 6 kulan oo isku xigxiga oo ciyaaraha ay bannaanka kula soo ciyaareen kooxaha London tan iyo 2-0 guul oo ay Chelsea kasoo gaareen October 2023. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal falanqayntii kulan ciyaareed xiise leh oo u dhaxaynaya kooxaha Chelsea iyo Brentford oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska. Daawadayaal haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saara channelkeena YouTube, waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena. waa Muuse Xusho oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.